السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الحكيم عثمان نور وكما قاعد الشيخ صومالي لما انتين وايدن سلامي شعبك الصومالي يد ملك السد جوكتان وحان لكم سلام سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اسكا بعدي وحان عاو الله كان أسوأ قلين ربينا يدين شاقو bishii September ee haddeer wiigii hore 13 waxaa soo booqday oo u yimi Sheekh Cabdiraxmaan Dabcasar oo ka yimi Ohio. Sheekh wuxuu ii sheegay in uu doonayo in fundraiser loo qabto oo nin kale oo Soomaali oo ganacsade ah uu meel u qabtay, anigana iga doonayo dadkii aan aqaanay magaalada joogay beenan hawsha la garab galo. waa ballan baan iri, wuxuu ii sheegay in masaajid iyo hawl dhibaato yara jirtay. waa ballan baan iri, waa u ballan qaaday. wuxuu soo wacay habeen saddexaad, hawshiisii isla maalintii iga tagayba waan galay. waxaan ku iri waa ballan. uu soo wacay, waxaan ku iri hawsha meel fiican bay maraysaa, hadduu ilaahay yiraahdo maalinta Arbacada ayaan hawshii oo dhan soo dhammaynayaa. ololihii isla maalintii baan qaaday. waxaan soo guray lacag cadadkeedu yahay waxa weeyaan $1,000 qof baa dhiibay. lacagtu waa taas aad aragtaan, waa u jeedaan, waa taas lacagtu $1,000 qof baa dhiibay. waa kunkaas waad u jeedaan isaga, waa kaas. kunkaana waxaa dhiibay kunkii kale kunkaa kalena waxaa dhiibay qof ganacsade ah, isaguna waa 2,000. shantaas boqol aad u jeedaan iyana qof baa dhiibay. shantaa kalena iyana waxaa dhiibay qof ganacsade ah. halkaasi waxa weeyaan $3,000. 200 gabadh baa ii dhiibtay, iyaduna xerta ka mid ahayd. 200 ee kalaad aragtaanna gabadh baa ii dhiibtay. 200 isagana wiil baa ii dhiibay. 200 maama ii dhiibtay, iyaduna aanu bildin wada deganaan jirnay. 100kaasna gabadh kale ayaa ii keentay. marka lacagti markaan isku wada geeyey waxay noqotay 1,000 iyo 1,000 waa 2,000. 3,000 iyo 800 iyo 100 meela 3,900. marka insha Allah bidnillaahi kariim waxa ii maqan 4 qof oo kale oo iyaguna berita ila ballamay oo u tagayo oo soo gurayo. markii aan maanta soo hoyday aan lacagti isku ururiyo allow aadan beerka beelin. suga Soomaaliya lacagti waa taas saa u jeedaan, waa 3,900. wax beeni kuma jiraan, waa wada dhan tahay. 3 qof mise 4 qof oo kala ii haray. berito ayaan islahaad u tagtay. laakiin maxaa ka dambeeyey? waxaa ka dambeeyey sheekhii waxa uu galay sheeko kale oo xad dhaaf ah oo aanan ogolayn annagu haddaanu nahay xerta shiikha. sheekadaas oo ah dhaqan dumis, diin ceebayn, dadcay iyo laalush qaadasho. qof waxaa ku shaqaysta ayuu dabada la gala. waxaan ogaaday inuu sheekhuba arrimo kale ay meesha ay yara jireen. kabacdi waxaa igu soo dhacay maanta telefoon. waxaa lagu yidhi arrintaas bal ka yara fiirso. telefoonku wuxuu iga yimi Ohio. sidaa darteed lacagtii aan soo guray ee 3,900 ahayd ammaano ayay igu ahayd. waxaa waajib ah, waa u jeedaan Soomaaliyeed, waxaa waajiba bacdamaa ammaane igu ahayd inaan u sheego
dadkii asxaabta ahaa ee barakaysnaa ee karaamaysnaa ee lacagtaas iisoo dhiibay in isbeddel dhacay iyaguna way maqleen oo way arkeen waxaan idhi lacagtii waa soo celinayaa dadkii waa wada dhaarteen waxay yidhahdeen maya dariiqaas yaanan ku bixin laakiin sida kalaad sheekhow adigu dad ugu daberayso ama aad sadaqo ugu dirayso ama dad siinayso aday kuu taalla waxaa igu ballana qof kasta oo aan sadaqadaas lacagtaas ay dadkaasi la baxeen aan siinayo waxaan u dirayaa soomaaliya haddii ilaha yidhaahdo qof kasta intuu bixiyey ayaan rasiid ugu qorayaa qof jilicsan baan u dirayaa xawaaladan dhigayaa qofka loo diray qofka qaaday lacag inteed iyo qofka magaciisiina qof walba inbox baan facebook igu soo diraya waa iswada garanaysaa wanban igaga tegi maayo aniga 3 ilaa 4 qof oo kale oo ii harsanaa iyagana waxaan u malaynaya kolley galabta xaaladda way maqleen marka insha allah dee kolley iyaguna lacagtooda ha iska haystaan sheekhii arrintaasuu galay arrin aan loo baahnayn ayuu faraha la galay howlo kale oo aanan hadda ka dhawaajinayn baaba ugu yimi baa laga yaabaa sheekhu marka soomaaliyay xaaladdu waa taa saa ula socda lacagtaas sheekha oon u soo ururiyey ee fundraiserka ahayd xaaladeeda caawa saasay isku bedashay insha allah 1500 ee ugu horreeyey waxaan haddeer arkay meel ku arkay website hay'ad khayri oo dad loo ururinaya lacag insha allah qof kasta saan u sheegay marka aan diro magaciisa ayaan ku dirayaa qofkii miskiinka ahaan u diray bacdama aad igu tiraadeen soo celinin lacagtii oo sheekh Abdixakiin odaan kugu barak karaamaynay hay saa doontidna u dabar aniga ugu bixin mayso xaraam calayg aniga inay igu baxdo saa igu dhibteen baan u bixinayaa mana gaarayso sheekh dabcasar ma gaarayso saad iigu dhibteen baanan u bixinayaa hadduu ilaahay yidhaahdo sheekhiina waa lagala noqday arrintaas marka insha allah bidnillaahi kariim waxaa isoo wacaya marka insha allah bidnillaahi kariim alo waa ku jiraa life baan ku jiraa insha allah iska hay lacagtaadii ma iska hay insha allah waa yahay insha allah saasaan samaynaya okay insha allah waa kaa soomaaliyahay kaasaa ula socda waxaa jirta xaflad ay yidhahdaan waa qabsanana oo bisha 8 ah waxaan u sheegayaa qof kasta oo soomaaliyeed oo gobolka Minnesota jooga meeshaas waxaa la dhiganayaa kaamarada waaweyn oo ay xerta sheekhu leedahay sheekh Cabdilxakiin anaa iska leh yaa la dhiganayaa qof kasta oo meeshaas ka qayb galaana waxa uu ku darsoomayaa leeska colaada sheekh al-Soomaal iska faham qofkii diyaar u ah reer Minnesota halka lagu arko bambam lama baahna iyo qayb sheekada isku dhamaatay looma baahna iyo qaylo sheekadu waa isku dhamaatay marka saas weeyaan insha allah bidnillaahi kariim saa ula socda qofkii goobtaas taga waxaa lagu darayaa leeska marka hawshan soo dhamaato ilaa iyo 2019ka hawl culus ayaa socota oo bilaabanaysa ilaa iyo 2019ka hawl culus oo marka hawshan soo dhameeyo waxaa kale ugu dambeyntii aan idin sheegayaa insha allah bidnillaahi kariim hadal badan iyo bakh iyo damdam waa soo dhamaatay 2 weeks baad siinaysaa waxaan bara soo 2 weeks ka bacdi casharka freedom of speech la yiraahdo ayaad ogaan doontaan Soomaaliya wuxuu yahay iyo anigu waxaan ahay wallahi inaan la faanay waa 2 weeks hawsh amoodina in la asaacdo anu magacaygu waa Cabdixakiin habeenna waa gudaa maalina waa gudaa marka hawl timaado 2 weeks baan idii qabtay halkaasaanad kala soconaysaa hadda ka hor baa waxaa la yidhi nin carab oo dukaan haysta ayaa waxa uu yimi nin tuuga
markaasuu wuxuu ku yidhi yaa cabdallah yaa cabdallah yaa cabdallah soo bax bishii baa halkan ka bilatay ninkii waa fahmay wuxuu yidhi ninkan tuugay muxuu ahaayo ninkii wuxuu yidhi bayji shahr qudaam albaab wariga tag buu yidhi bishii hadday bilatay hortaydaas imaan doontaa albaabkayga hortiisa imaan doontaa marka waxaan idinku bishaaraynayaa on ballan idin qaadaya ballan aan idin qaadaya in aan dhagihiinnu waxaa dhibsateen idabdarrada faasuqa aflagaadada waa soo afjarmasaa 2 weeks waxaan doonayaa qof kasta inuu ogaado ama barto waa maxay freedom of speech waxaa la idin barayaa anaan idin barayo Soomaali wallahi inaan la kaftamayn sheekadu waa soo dhamaatay ama halaqan anigu qof Soomaali hadalba kama qoraba runtaan idin sheegaya caawa xaqiiqadan idin sheegaya qof Soomaali saas yiri wuxuu waa saas ma qoro anigu waxaan qoraa dadka waddanka iska sharcigooda توكس حالد واتاس إن شاء الله بإذن الله كريم أصحابتي دي كرامي سي شرفتي أرنتاس يقول شرفتي حقا نقالها هنا إن شيخاس ومصور ودي مقلي أد بقول ما هسنتي وأنا ديهم بلياني ياس وأنا دين صدقاني إن شاء الله العكتاس بنا يقول بحصاني جا قفل بنا خسيتي سام صدري يا دويل هاي رهدو أد بعدون ما هسنتيين وليس كل جين ballanteenu waxa weeye marka hawshani dhamaato hawshani markay soo dhamaato yaa ka dambeeyay yaa taageeray yaa la socday yaa sacabka u garaacay damdan sheekadu waa isku dhamaanaysaa qof kasta oo ka mid ahaa liis guaderi halis dheer ba ay qoran liis dheer ayaa ay qoran marka insha Allah biidhnillaahi kariim أصوات قرننا كل واحد يدين رجعي نبض يبرواقه قولي يقبلني ما كنا ولاد love you لا ولاد باي باي